waxaan rabaa marka fursadan qaaliga ah inaan uga faa'iideysto shacbiga Soomaaliyeed gobolada qaar iyo goobo badan oo ciidamada qaranku ay ka dagaalamayeen sida ay u gacan siiyeen ciidankooda dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gayiga Soomaaliyeed ciidamadooda qaranka inay garab istaagaan ciidamadooda qaranka inay gacan siiyaan sida deegaanada badan oo hadda argagixisada laga xoreeyaba dadka deegaanku ay u gacan siiyeen ciidanka haday noqon lahayd xog haday noqon lahayd awood iyo wax kasta oo ay kari karaan dadka Soomaaliyeed taas ayaan horta dadka Soomaaliyeed halkan u marsiinay oo ka codsanaya waxaan kaloo rabaa galabta fursadan in uga faa'iideysto runtii arrin kale oo ayadana aad iyo aad madluucan aan qusayn laakiin runtii aad iyo aad mararka qaar marka aan aragno naxanuunjisa inaan ayadana aan wax yar ka iraado waxaad arkaysaa mararka qaar aba media qaybo badan oo media kamid ah ay adeegsadaan ayadoo la leeyahay ciidamadii halkaas dad ku dhacay ciidamadii halkaas dad ku dilay ciidamadii horta ciidan laguma noqdo qofku inuu darees kasto dalkan wuxuu ka soo baxay burbur wuxuu ka soo baxay dhibaato aad u adag waxyaabaha qaar oo ay aheeday inaan dadka shakhsiyaadka ah u helin in la helo hadda way fududahay tusaale ahaan dareesko kale waxa laga yaabaa meelaha ama gobolada qaar ama muxuu ahay magaalada meelaha kamid markaad aado dareeskan oo sida dharka caadiga ah oo suuqa laga iibiyo kale meelaha qaar loogu iibinayo inaad aragto ama dalka si sharci darro lagu soo geliyo ama xuduudaha laga soo geliyo ama meel kale laga soo dejiyo ama qaab uu lagu soo geliyo oo dalka ku soo galo dareeskaasuna uu gacantooda gelayo dad aan ciidan ahayn oo hay'adaha amniga aan ka tirsanayn dadkaasuna ay dad ku dhibaateeyaan meedihii iyo bulshadii marka qaybo kamidu waxay leeyihiin ciidamadii aan dhibaateey ciidanka qarankaana dilay ciidanka qarankaana dhacay ciidankii marka qofku waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ogaadaan dad badan oo ciidamada qaranka aan ka tirsanay oo burcad ah oo dareeska ciidanka dareesyo u egashanay oo isticmaalaya oo dadkii Soomaaliyeed dhibaateynay oo dhacay oo dilaya jira in aan wax ka qabanno waa mas'uuliyadna saaran inta karaankeena ahaydna waa ku jirnaa laakiin waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dadka noocaas inay jiraan inay ogaadaan inay wax nagala qabtaan inay nagu gacan siiyaan sida wax looga qaban lahaa waxaan kaloo rabaa dadka mar walba adeegsanaya ciidankiya wax dile war ogaada waxa wax dhibaateynaya boqolkiiba 80 ma ahan ciidan kaliya tusaale hadda kuwa la leeyahay ciyaal weero waa kuwa soo kale tuuta soo gashtay kaasoo kale tuuta soo gashta qorina helay ayaa bulshadii Soomaaliyeed dhibaateynay sharafkii iyo qiimkii ciidanku lahay ayuu marka muxuu ahay iyo ku ciyaaraya ciidanku marka runtii way ku jiri karaan malihi boqolkiiba boqol waa nadiif malihi way ku jiri karaan dad akhlaaqiyadkoodu xun yihiin dad aan wanaagsanayn dad anshaxii asgarinimada oo lahaa laga rabay aan gaarin oo wali laga yaabo in damiirtiisu siinayso inuu dareeskii u qaatay oo ayaga inuu ku difaaca ay heeday inuu ku dhibaateynayo ay dhici karto way jiri karaan laakiin waxaan rabaa inay jiraan dad badan oo kale oo burcada oo hubaysan oo dadka dhibaateyna inay jiraan wax in laga qabtana aad iyo aad ay muhiim u tahay hay'adaha amniguna dabcan ay ku howleeyeen amba anaga ha noqoto ama hay'adaha kale ha noqoto dadka Soomaaliyeedna waxaan rabnaa magaca ciidanka in la ilaaliyo gaar ahaan meediyuhu inuu ilaaliyo magaca ciidanku uma adeegayaan qof gaar dan gaarna kama shaqeynayaan waxaad ogtihiin dhibaatooyinka ugu badan dadka la kulmay waa ayaga ciidanku waxay ka fogaadeen qoysaskoodii waxay galeen duurka way ku dhaawacmayaan way ku dhimanayaan qofka bini'aadmiga waxa uu bixiyeen waxa ugu qiimaha badan waa naftiisa iyo dhiigiisa way xanuunjinaysaa marka midka gara kara dareeska wuxuu u qaatay oo qoriga u qaatay ee fronta line-ka ku jira ee 3 iyo 4 jeer iyo dhaawacba marka uu dhaawacmaba markasta hadana fronta ku laabanay si uu waajibaadkii meesha uga sii wado marka uu maqlo gadaashiisa ciidankiya dadka dilay ciidankiya dadka dhacay marka uu maqlo niyad jabay ku tahay araba marka dadka burcada ah ee hubaysan ee umada dhacaya in aan lagu tilmaamin ciidane si wada jira inaan wax uga qabanno bulshaduna qaybaha uga aadan inay ka qabtaan hay'adaha amniguna inta ayaga iyo mas'uuliyadda ka saar ayaguna inay ka qabtaan wada suulino si magaca ciidankeena aan u ilaalino badqabka iyo nabadgelyada bulshadeena aan u ilaalino aad baa mahadsantahay